kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal gabi ahaantiinba halkani waa Maxamed Amiir Jannal gacmo furan ku soo dhawaada hadii uu fiidiyogan maanta kuugu horeeyo oo kuugu cusub yahay fadlan subscribe inoo saar ku soo dhawow channelka hadii aad kamid tahay asxaabtii hore inoo joogtay waa ku maasan tahay la joogistaada maanta qisada aan idin wado ayaa waxay tahay qiso la yaab leh oo aad la yaabi doontaan dhacdada ceenkan oo kala ah laga yaabay gudaha Soomaaliya inay ka dhacday lamaanahan iminka idin muuqda waa laba lamaane oo nolosha wadaagaya in muddo balse kulankooda ka hor oo qaangaarka ka hor ay waxay kulmeen iyagoo caruur ah oo ku dhashay hal isbitaal shakadan ayaan markeedii hore waxay ka bilaabatay sida tan labadan lamaane ayaa waxay ku dhasheen isku isbitaal iyadoona sidoo kale loo kala bedelay hooyooyinkii dhalay gabadhan iyo wiilkan iminka idin muuqda markii ay dhasheen shil ka dhacay isbitaalkaasi ayaa kalkaalisooyinka waxay la yaabeen ama ay ku wareereen magacyada hooyooyinka oo islaha xilligaasi waad ogsoontihiin iminka daadoodu waa 70 sano qof 70 sano ka hor dhashana waa dareemi kareysaan in xilligan tiknoolajiyada jirta oo kale in aysan jirin intii labada caruur baan la isku hooyooyinkoodii loo geynin ayaa waxaa la geeyay saalada hooyooyinkana waxay naqdeen kuwa isku magac ah kadib waa lagu wareeray Jim ninka lagu magacaabo waxa loo geeyay hooyada Margaret hooyada Jim ayaa loo geeyay in muddo ah markii ay haysteen oo isla isbitaalka ay ku jireen ayaa hooyooyinka waxay dareemeen in meeshan qalad uu ka jiro waa dareenka xagga hooyanimada waa tahay kalkaalisooyinkii ayaa dib isugu soo laabtay waana loo kala celiyay hooyooyinkoodii saxda ahaa halkaas ayayna ku kala qaateen caruurtooda iyagoo yaryar toddobaadkani ayaa waxay u dabaaldegeen kotan guuradoodii ka soo wareegtay guurkooda halka sidoo kale iyaguna ay u dabaaldegeen Margaret dhalashadoodii oo ka soo wareegtay toddobaadkan guuradii Khamiistii la soo dhaafay ee isbuucii hore Margaret oo la hadlaysay warbaahinta ayaa tiri hooyooyinkeeni ayaa loo kala bedelay caruurta Jim waxa qaadatay hooyaday anna waxa la iigay hooyada Jim in muddo kadibna way dareemeen hooyooyinkii dib ayaa noo kala celiyay oo qoysaskeeni ayaa dib noo lagu celiyay halkaasina waxa ku kala tagay labadii qoys ee caruurta sida saxda ah u qaatay Jim ayaa waalidkiisu waxay u kaxaysteen Arden oo ka tirsan koonfurta magaalada Glasgow halka sidoo kale Margaretna waalidkeeda ay ku xaysteen gurigooda oo ku yaala koonfur galbeed ee Kingswood ee magaaladaasi halkaas ayayna noloshooda iyo taariikhdooda ku soo kala qaateen iyagoo kala maqan markii daadoodu ay gaartay 18 sano ayaa mar kale qadarta isku soo dhaweysay labadan lamaane oo kulmay markii ay umusha ahaayeen engineer Jim oo iminka howlgab ah ayaa yiri waxaan ka qayb galay xaflad guur ah oo saaxiibkay oo ka dhacaysay guriga qaybta dambe ee barxadda weyn ee Queen's Glasgow halkaasi ayaan ku kulanay markale Margaret qofka uu guursanayay saaxiibkay David ayaa ahayd saaxiibta gabadhan kale ee Margaret gabadhaas oo lagu magacaabay Pat waxay noqotay sheekadan labada saaxiibe ayaa hadana waxay saaxiib la noqdeen labadii canug ee kulmayay dhalashadoodii ee la kala bedelayay waa mar kale mucjiso kale iyo taariikh kale oo noloshooda ku qoran Jim ayaa yiri waxaan ku sheekeysanaynay goobta soo dhaweynta dadka ka soo qayb galaya xafladda maadaama labadooduba ay yihiin laba qofood oo kala socda gabadha guursanaysa iyo wiilka wax guursanaya halkaas ayay dadka ku soo dhaweynayeen dhoola cadeen iyo qosol iyo wada sheekeen kadib waxa la kala qaatay ciwaanadii xiriirkoodan halkaas ayuu ka bilaabay muddo 2 bilood oo ay wada sheekeysanayeen ayaa hadana tuhun kale wuxuu soo kala dhaxgalay hooyooyinkeedii markii canug walba hooyadii uu la wadaagay in uu soo bartay saaxiib kaasi ah kadib labada hooyo ayaa ayagana hadana isbalansaday sheekadiina halkaas ay ku fashilantay oo waxay noqotay labadii lamaane ee yaraantoodii iyagu saaxiibada ka soo bilaabo la dhihi karo xagga xiriirka ee la kala bedeli jiray sidaasina ay isku guursadeen oo ka bilowday noloshooda oo ay isbuucii hore u dabaaldegayeen kotan guuradii ka soo wareegtay guurkooda hadda waa 50 sano inta badan dhacdooyinka ceenkaasi ah way ka dhacaan daafaha caalamka qaarkood ba lagu keenay filmaan sida filmaan Hindiya oo hadda koor daawateen ayaa jira sidoo kale dhacdada ceenkan oo kalena way ka dhici kartaa gudaha dalka Soomaaliya ee ka soo jeedno balse inta badan taariikhaha iyo dhacdooyinka mucjisooyinka ah ee ka dhaca gudaheena
taariikh lagama qoro oo baal dahab ay ka gali lahayd gudaha Soomaaliya wixii ka dhacaan halkaas ayaa looga tagaa warbixintan labadan lamaane oo yaraantoodii kulmay haddana iminka u dabaaldegaya konton guuridii sanan guuridoodii ka soo wareegtay ayaa inta iskugu soo gudbanayay aan idin sii raaciye labada lamaane waxay isku dhaleen laba wiil iyo gabar sidoo kale wiil yarna waxay u yihiin awoow iyo ayeeyo oo waxay noqdeen family aad u ballaaran inta ku kulmi doono warbixin kale oo ceen kala mid ah waxaan kaga tagayaa sida ayu nabadgelyo